system and security. aniga naftirkeyga waa ka mid ahay dadka burburka uu saameeyay waxaan ku soo bartay luqadda Ingiriiska balse laakiin waxaan dareensanahay inay jirto baahi aad u weyn oo ku saabsan in wax aan ku barto afkeyga hooyo luqadeeda Soomaaliga marka isku mid ma ahan in luqadaada hooyo wax ku baratid iyo in luqad kale wax ku baratid first horta marka koobaad waxay ka rabtaa luqadda shisheeye Ingiriiska inaad baratid midda labaad kadib inaad sii baratid culumta inteeda kale marka waxa ka sii fiicnaan lahayd in af luqadaada hooyo si toos ah maadada ugu qaadato markii dawladda dhexe ay burburtay qolooyinkii waxbarashada ma lahayn meel keliya oo laga xukumo laakiin waxay ku xirmeen wadamada dariska iyo wadamada carabta walaalaha nahay ayay ku xirmeen si ay afkii qaarna carabi ay qaateen qaarna waxay qaateen Ingiriis marka waxay dan moodeen danta ay la leeyihiin qolooyinka ay ku xirmeen ayay manhajkoodii qaateen laakiin waxaan aaminsanahay maantadan la taagan yahay waxa sameyn kara arrinkaas waa dawlad oo dawladuna manhajka ayada soo dejisaa hadday tiraahdo dawladdu waa in Allah Soomaaliyeeya ayada waa in manhajkeeda Soomaaliga soo dhigtaa ayna ku amartaa iskuul walba inuu manhajka Soomaaliga raaco haddii taa la sameeyo waa hirgalaya anagana hadda macallimiin yaryar oo hadda gadaal ka soo baxayaan nahay marka waxaan ku soo baranay anagana hadda waxa waaye maadooyinka oo dhan ama dugsiga sare aan ku soo dhameynay waa Carabi iyo English wixii anaga aan wax ku baranay waa Carabi iyo English intaas ayaana marka maadooyinka qaarna waxaan ku bixinaa markaas Carabi haddii marka English oo yani English aan ku bixinaa marka balse haddii ay jiri lahayn maadooyinka oo Carabi ku baxay manhajyada oo dhan haddii Soomaali ay ku bixi lahayn anagana aan soo arki lahayn ama aan ku soo baran lahaynay dabcan waa bixin lahayn inkastoo haddaba ay Soomaalida markaas ay lahjad anaga aan adeegsano oo aan ku hadalna ay tahayna waa maada ahaan u bixina oo kaliya marka iskuul kasta waa Ingiriis ama Carabi luqadii Soomaaliga wuxuu ka yahay luqad bukay berigi hor meeshu ka ahaan jiray Ingiriisku luqad ka jiray Carabi luqad ka jiray maanta waxa luqada Soomaaligi ka soo bilow ilaa laskabola saasir maanta Soomaaligu wuxuu ka noqday luqad saadaraad waxaan leeyahay maamulada jira way hirgalin karayaan hadday isku dayaan inay ka dhigaan Soomaali laakiin waxa la dawladda dhexe ha samayso manhaj Soomaaliyeed oo dhammaan meel kasta oo Soomaaliya manhajkaas la wada baranayo haddaan sameyno dugsi hoose dugsi dhexe dugsi sare af Soomaali ka dhigno jaamacaduna way noo sahlan doontaa inaan ka dhigano maxay Soomaali waxaan ku baaqi lahaa in marka waxbarashadeena manhajyadeena horay ee dadkeena ama professoradeena horay ee wax ku soo barteen in dib loo soo celiyo oo marka luqadii Soomaaliga ah inay manhajyadii dhan ay wada noqdaan oo si markaas dadkana ay shacabka Soomaaliyeed ay wax ku fahmaan anagoo macallimiin aan sidaas aan wax ku fahansiina marka si taariikhda wadankeena aan dib ugu fiirino waxaan ku baaqi lahaa marka maadooyinka oo dhan haddii aan heli karno in marka nagala soo dhigo afka Soomaaliga ah si aan ugu faano luqadeena anagana ayayna
ka heshaa barnaamijyada Dalsoor ma danaynaysaa in la helo warbaahin Soomaaliyeed xor ah oo u adeegta bulshada fadlan taageer Dalsoor waxaad bixisaa $5 ama $10 bishii deeqdaada sidan aad u bixin kartaa